marxuum kani geeriyooday ayaa lagu magacaabi jiray Maxamed Sheekh Cabdullaahi waxayna kooxo hubaysan ay ku dhex dileen gaari uu watay xilli uu ka yimi goob ganacsi oo ku tiilay deegaanka Tambiisa kuna soo jeeday magaalada tani Johannesburg ayagoo 3 badood ku dhiftay marxuumka isla goobtana ku geeriyooday kana qaatay lacago dhan 50,000 oo rand oo lacagta Koonfur Afrika una dhiganta $5,000 kooxihii falka geystay ayaa goobta isaga baxsaday waxaana daqiiqado kadib goobta soo gaaray ciidamada booliska ee deegaankaasi mana jirto cid ay u soo qabteen kani dilka ah waxaana maalmihii ugu dambeeyay uu dilku ahaa mid si aad ah u sii kordhayay haddaba goob jooga la socday marxuumka geeriyooday oo gaariga la saarnaa ayaa ka warbixiyay siday wax u dhaceen meesha shilkan uu dhacay gaari baanu ka soo kaxaynay meel taraaga Tambiisa la yiraahdo location dukaan Soomaaliyeed ku leeyihiin dukaan wholesale oo dukaan weyna yaanu gaari ka soo kaxaynay laab baanu ku dejinay maalmaha hore waan adeegaynay asarkii baanu alaab soo ka soo deegnay meel soo fiidsanay marka alaabtii dejinay yaanu ka soo baxnay gaarigii lacagna waan ka soo qaadnay dukaankii marka gaarigii wax yar aan dukaankii wax soo dhaafnay baan shakinay gaarigii nagtoo dhiga ma aragnay gaarigii marka wiilkii darawalka ahaa gaarigii aanu darawal ma ahay wiilkii kale gaarigii anaga kala ka fadhiyay wiilkii gaarigii buu arkay ka dambeeyay oo ka yarshikay waxoogaa muddo markaan soo soconay gaari isbuucii qaboojiyay waxaan meel goor soo laabnay mar qurba hadana waa la soo gaaray xabadii oo kale ay soo rideen gaari soo garab galeen markii gaari soo garab galeen xabadii rideen bismillaahir rahmaanir rahiim uu joojiyay bismillaah ma artay ku qabtay birigu halka ku qabtay inta markay dhacday anigoon hataa ka gaarsiinay inaan weydiiyaba inuu gaarigu taayir ka qarxay iyo inay wax xabad tahay dana xabadii kala tuban la saaray 3 xabadood oo ku dhacday أنا إلهي ما يبدأ مالك من إلهي اللي ما قرأي وأنا في وصل علي حبذي الله بعد جنبي وصل علي من الدقة برسي يقولون وصل علي أنا كساو في ريبة حتى أنا يقول كلا هاي مبان سو براروي xidig nuur cismaan oo kooxo burcad Koonfur Afrikaan ay goobtiisa ganacsi ay u soo dhaceen dhaawacna ay gaarsiiyeen asaga iyo 2 wiil kale oo Soomaali ah ayaa asaguna ka warbixiyay xaaladooda location lagu galo waa Soweto marka adiga tuuga ayaa ahayeen adiga waxay 12 saac oo galan amal marka anagu adiga iska jirnaan oo iska ilaalin adiga waa iska ilaalinayna la adiga qadar rabbi baa dhacday adiga 12 saac oo galan adiga wiil banaanka noo taagnaa ayaa gudaha lagu soo tuuray kadib tuugada gudaha soo galeen kadibna meesha kale ilaa ka dhacay qadar rabbi baa qornay xuriye ay wateen qori weyn adiga AK47 ahaan qori ay wateen adiga lacagta keena dhaxeen lacagtina waa qaateen adiga lacagii meesha ay taam ku jiray wixii bay qaateen telefoonada naga wixii naga qaateen adiga qaarna waana jir dhaawaceen waxba nagu dhufteen kadibna waa naga bixin leh Maxamed Xasan Ibrahim Matka TV-ga caalamiga ee Somali Channel Koonfur Afrika